Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Isku soo noqod wanaagsan. Videogii hore waxaan kaga hadlaynay qaabka aad kombiyuutarka uga dhigi lahayd mid xawaarihiisu aad u sareeyo, sidoo kale aad wax uga bedeli lahayd. Videogan waxaynu kaga sheekaynaynaa waxyaabaha ku guda jira kombiyuutarka dhexdiisa iyo waxyaabaha aanu la'aantii aanu shaqayn karin ee ugu muhiimsan. Sidoo kale waxaa laga yaabaa kombiyuutarka dhexdiisa waxyaabaha ku guda jira inaad aragtay ama sawir ahaan ku aragtay, laakiin waxaynu ka hadlaynaa mid walba shaqada uu qabto. Sidoo kale waxaynu ogsoonnahay kombiyuutarku inuu leeyahay qaybo fara badan oo aad u muhiimsan, taas oo mid walba shaqo gaara qabto, taas oo kombiyuutar ka dhigaysa mid si fiican u shaqeeya amba mid aanu la'aantii aanu shaqayn karin, ha noqdo desktop computer amba laptop ha noqdo. Waxaynu ogsoonnahay kombiyuutar walba wuxuu leeyahay large circuit board waxa loo yaqaano, taas oo lagu magacaabo motherboard. Motherboardku wuxuu ka samaysan yahay plastic amba fiberglass, taasoo ku guda jiraan dhexdiisa waxyaabaha kombiyuutarka ugu muhiimsan oo dhanba ku guda jiraan. Waxyaabaha ugu guda jira ee ugu muhiimsan ee ugu horeysa waxa weeyaan waa CPU waxa loo yaqaano amba central processing unitka, taas oo processing garaynaysa amba informationka ka shaqaysiinaysa, soo saaraysa informationkii. Sidoo kale wuxuu soo saarayaa informationka, wuxuuna ilaalinayaa commandiska kombiyuutarka mar walba oo kulayl noqdo kombiyuutarkaasina waxaa dusha kaga saaran gobol yar oo bir ah oo loo yaqaano heatsink amba taas oo kulaylka dibadda uga tuuraysa processorka. Waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee doonayna ka hadalno waa sidoo kale waa RAM oo loo soo gaabsay random access memory. RAM-ku waxa isagu leeyahay waa short time memory amba waxa lagu talagalay waxyaabaha waxa lagu isticmaalaa muddada gaabana. Sidoo kale isaga wuxuu kaga duwan yahay wax faylisa kuma shubi karaysid. Sidoo kale wuxuu masaxayaa markaad kombiyuutarka bakhtiisid waxyaabihii hore oo dhan uu masaxayaa, si aad uga dhigto muddadaisa aad u dheerayso waxyaabahaad ku shubanaysidna ay u bataan. Waxaad u baahan tahay waxa loo yaqaano hard drive. Hard drive-ku wuxuu kaga duwan yahay isaga wuxuu kaydinayaa waxyaabo muddadiisu aad u badan tahay. Sidoo kale waxaa jira hard drives badan oo aad u kala duwan, isaga laftirkiisu uu sii kala tayo sareeyaa. Ha ugu horeyso waxa loo yaqaano SSD, taas oo kuwa la isticmaalo muddadan dambe ah, oo wuxuu kaga duwan yahay isagoo lacagtiisuna aad bay u badan tahay, xawaarihiisuna wuxuu kaga duwan yahay isagoo ah muddada dambe kuwa la isticmaalo ha noqdo qaali, laakiin wuxuu kaga duwan yahay xawaarihiisuna aad buu uga fiican yahay, oo sida RAM-ka oo kale aad buu fudayd badan yahay marka loo eego hard drive-ka. Waxyaabaha kale aanu kombiyuutarku aanu la'aantii waxyaabaha kale ee kombiyuutarka ugu muhiimsan waa video card waxa loo yaqaano, si aad uga dhigto kombiyuutarkaaga graphics-kiisu mid aad u fiican iyo muuqaaladiisu aad u tayo sareeyo. Sidoo kale waxaad u baahan tahay wireless card amba si aad uga xiriiriso khadkiina gurigiina oo kale si aad ugu xiriiriso amba khad walba si aad ugu xiriiriso, wireless card ama net card waxa loo yaqaan aad u baahan tahay. Haddaba waxyaabaha componentska ee kombiyuutarka ka kooban yahay oo dhan say u shaqeeyaan waxay u baahan yihiin waxa loo yaqaano power supply unit. Waxa power supply unitka loo design gareeyay inuu derbiga ka soo qaado dabkii derbiga ku guda jiray, una gudbiyo kombiyuutarkii, iyo kombiyuutarkana motherboardku gudbiyo, motherboardkuna uu sii gudbiyo waxyaabihii kale kaga shaqaysiiyo ee dabka u baahnaayo oo dhan. Intaa waxaynu kaga hadlaynay waxyaabaha ku guda jira kombiyuutarka ee ugu muhiimsan
iyo kombiyuutarka dhexdiisa shaqada ka socota. Intaynu video dambe insha Allah isku kulmayno waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.